عربي جيل meelaad ku kala xisaabinayso qiyaamaha rabbi wana joojin waa mid ka mid ah mahmaha Soomaalidu ay leeyihiin iyagoo ka matalaya carabtu qaabka geela ay ula dhaqmaan ee aan fiicnayn inay ka xun yihiin kadibna ay doonayaan maalinka qiyaame inaanay raabin inay arkaan meesha Ilaahay carabi geelu kala xisaabinayo waxaan u soo qaatay waxa laga yaabaa marar badan inaad aragtay qof xun oo qaabku u dhaqmaya ay tahay dhulka fasahaadinayo inuu xumaynayo halka inagu inta aan isku day karana aan doonayno hagaajino aan doonayno nafteena hagaajino eelkeena hagaajino inta inagu dhaweyna hagaajino asxaabteena hagaajino inta inaga fog inaan dadaal u galno in hagaagaan isagoo xumaynaya dabad ama iyadu qalba waxa weeyaan jinsiga uu yahay kadib maanka iska tiraadaan iyo tolo qofka sida wax xumaynaya iyo anigu tolo halkan kala galina ayaa laga yaabaa in qof isaas dhaha laga yaabaa haddaba inaga wax hagaajinayno isku daynayno wax hagaajino ama inta wax hagaajinaysa inaga ha aadaan mid kale ha aadaan iyo dadka wax xumaynaya inaanay meel isu dhow helaynin Ilaahay agtiisa subhanahu wa ta'ala maalinka qiyaame ayaa rabbi waxa uu leeyahay am naj'alu alladhina aamanu wa 'amilus salihat kal mufsidina fil ard ma waxa aan ka dhiganaa kuwa Ilaahay rumeeyay amalkooduna uu wanaagsanaaday sida kuwa xumaaday baan ka dhiganaa ama sida kuwa dhulka fasahaadiyo xumeeyay baan ka dhiganaa yani ka dhigimayno weeyaan am naj'alul muttaqina kal fujjar mise waxa aan ka dhiganaa kuwa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsaday sida kuwa dambiilayaasha hadalku waxa uu dhigan yahay ka dhigimayno yani qoladaas wanaagsanaatay naftoodana hagaajisay dadkana hagaajisay adduunka iyo arladana isku dayay inay intay hagaajin karayaan ay wax hagaajiyaan biyo inta wax xumaysay isku mid ka dhigimayno Ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala oo baqan saaxib hadii adiguna naftaada aad u aragteen wanaagsan tahay wax hagaajinayso qoyskaaga qaraabadaada qarankaaga iyo inta ku dhawaad waxa weeyaan isku daysay inay hagaagaan dad kalena aad u aragteen wax fasahaadinayaan ha u baqin abaalka maalinka qiyaame Ilaahay waa Ilaah cadaaliya kama suurtoodo agtiisana kama dhacdo laba qof aan sineen nusimo qof arlada soo fasahaadiyay oo soo baabiyay iyo qof xoogiisa iyo xeeladiisa iyo dhammaan wax kasta oo uu haysto isoo geeyay si naftiisuna u hagaagi lahayd aadamuhu ay u hagaagi lahaayeen isku mid ka dhigi maayo labada xaasha wanaagsan waa Ilaahay salaam